صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. markoo Ilaahay baa mahad leh subhanahu wa ta'ala. Ilaahay baa keligii mahad leh. Waxaan aad ugu mahadnaqaynaa gudida wadada oo dib u soo noolaysay shaqadaas oo in bada istaagtay ayaan ugu mahadnaqaynaa. waxaan u sheegnaa dadka u sheegnaa wadadu waa soo sheeg gudoomiye wada reer leeyahay maaha. infrastructure-ka waa la wada leeyahay. Somaliland laba wada jirtay oo dalku magaalada ka dhismeen Somaliland waxa way wadada berberay Hargeysa isku xidha iyo wadadana wadada cad oo miyiga isku xidhi jirtay. wadadani waxay wadadii isku xidhi jirtay miyiga oo wixii miyiga laga keenayo amba ahaato subag amba xoolahaato waxa wixii intii gudaha looga baahan yahay halka baa laga keeni jiray wixii la dhoofinayo xagaas waxa laga keeni jiray wixii soo degay dibadda uga baahanahay. labada wado ayaa irmaana oo Somaliland laga dhisay magaalooyinkeeda. waxa wadadan gudhay markii aynu 60kii dawladnimada qaadanay aynu inaga iyo Ethiopia isku xumaanay ayaa wadadan xidhantay oo tuuga lagu gali jiray markii dambe Ethiopia. hadda waxay la tahay wadadani inay dhaqaalihiina ay ka qaadan doonto qayb libaax maday furanto ilaa waxay soconaysaa markii ilaa feerfeer bay socotay wadadani وقت اليان وسميهد إما كان هذا إن شاء الله تعالى وحي مكلا كشناد أو حي من دليرة أو ما كان سايب بروكريس فوق الصعدة أو دلالية إنه كلا كشناد أو كل الصومالية أو كل الهرلية أو هين أو كل كواحد يقول دفاع كرا أو لو إلى على كرا وكل كوجوين ما اللبات إثيوبيا وحلو دفاع كرا صوماليمو أي لقينا في أي سنة lagu dhulkaas lagu ilaalin doonaa ka ninkaas ayimi insha Allah ta'ala ana waan tagi doonaa insha Allah waan soo baridin doonaa isna waa diyaar warkayga imanaya in wadadii dhagax buur ka soo qaado ilaa ay keenina guuxaa inuu keena marka iyana kala masayna wadada kasta ee Soomaaliland sameysata yaa reer loo aaneyn waa wada reer Soomaaliland oo laga wada faa'iidsanaya insha Allah ta'ala tii isku xidhi jirtay burco iyo Hargeysa waa dhisi doona waxa wadanka horumariya waxa weeye wado magaalada Oodweyne waxaan jirtay wadooyinka magaalooyinka ugu waaweyn anoo yar baan tagay Arab baa joogtay fooqobay lahayd ya habareetay baa deganaan jirtay oo tagay anoo yar hooyaday qaxaysay maanta waad iga arkay 200 oo arday baa ka soo baxay secondarygii 9 baa ka soo baxay waad arkay waa wada laanti gabiida kun iyo wax ka soo baxay konton waa wadadii wadadu waa infrastructure-ka adduunka waxa lagu kala baxaa infrastructure-ka marka waan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka caawiyay sidaas guddiga waxaan kula talinayaa inay gogosha u dhigtaan reer Soomaaliland oo dhan reer Soomaaliland oo dhan inay dhigataan idinku u tagtaan dadka lacagta haysta dad hadeen maanta helo 5,000 amba 2,000 oo qof hadeen helo oo reer Soomaaliland oo min $1,000 bixiya wala $1 milyan dadka waxa culaysa $2 milyan ya marka waxay la tahay nimankan dibadda joogayna iyagu wax yaqaanaan sida wax loo burburiyo bariga hore afweene iyaga in la riday dibadda siday moog afweene orinteen nimankan waxay ku mashquulsan yihiin sidii Soomaaliya isku dir lahaayeen moogta marka ayagana waxaan leenahay wala dhulka la imanaysan adduunka minka soo xayay guriga ku noqaalay Mareykanka uu furfurnaa baa dadkii noqda go back halkan baana ma hoonay iska gubina waan leenahay كيدوين وجوبون عرفتها عرفتكين نيجي عروجيز هالك أو جوتة يوكا كعايدة هيا كعايدة ورد عروتها كانوا أنا كالي غوري كقالو لكن دد مساكينة وعروتها اللي ودي سكول الدونسة هنا تكعيسيد ريه بلا دون كالو مخدمه هرجيزاي مو أدليش لا هرجيزاي برعوي جميلة وساسا الاسكوفانا لكن ريه بروح كوفانا دون كده لمارك كوايو دبده جوجا reer Soomaaliland moojaane meelkood ka maqan reer ma jirto marka aad iyo aad baan anuguna insha Allah ta'ala xusbaan shakhsiyaanba wixii anagu xusbaana insha Allah horan waan uga bixin hada insha Allah tan waan ka bixin doonaa waa sadaqa jaariya waan ka bixin doonaa insha Allah ta'ala wixii aniga gudoomiyahan gaarsiin kana waan gaarsiin doonaa marka tamaado baligan waa dad mahadnaqina Muuse waa markii madaxweyne markii waristay dawladdu cashuur ay qaaday ay dadku soo celisaan aan u arkay يا ما واحد هرود عين باوي
haddii maanta balli geliyey madaxweyne muuse oo daam sameeyey waa tallaabo wanaagsan waatan leenahay war islaanta aad ka qaadataan cashuurta qudrada haysta waar cashuurta ku soo celiyo har u sameeya waar mas-uul u sameeya ilaahay baan ku dhaariyay waatan burcaan tagay maanta weyto waa naxay ya marka waxa weeye madaxweynuhu maalinta Jabuuti mariyay wadooyinku mariyay waa arkay quruxda Jabuuti damir maanu lahayn markuu arko wadada inuu arkay soo maro soo inuu yeedho war wadadaas ka sameeya ko dawladda hoose ya dawladda hawlaha guud in dadka la ficiltana oo quruxda kula ficiltaa ba weey dadka ma ficiltan inaga dhexina ka ficiltamina oo reer ku ficiltamina ma reer ku ficiltamaya qaran dhisi karta ma dhisi karta qaran ma dhisi karta oo ma aan soo goleen oo ummadahan isku ogoleen oo ummadaha kale la tartameen oo wadan ku tartameen wadan wax ma dhiskane wata magaalo ma dhisan magaaladeen waxa way kaatay kabeera ma limsan ku weynaa Afrika Kenya كبيرة هرجيز بقى كبيرة تعال لي مسقش فلاين تويلس ليلا إنه هو سليم تراي تويتس وتشيفان مسؤولين هو اسمه الدولار واسكو ميدو ترينيش مليهن والدم مليهن محن هو فاني كرنا ما كان حاليا يسلح لي كيف عديست وده كيف عديست اسكو تجا هذه جود عثماني وعصبيه عبد الرزاقيو متاني هي هذه موجود معنا انا ودي قرب تاجنا ان شاء الله تعالى اسمعاني وقصبان سلام